waxaa magaalada dhuusomareeb ka muuqanaya horumar kala duwan oo ay kula jaan qaadayso magaalooyinka kale maadaama ay noqdeen bulshada ku dhaqan magaalada dhuusomareeb ee caasimadda Galmudug muddooyinkii dambe kuwa dhexda u xirtay sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen soo dhaweynta wufuudda la filayo inay yimaadaan caasimadda Galmudug howlahani ayaa loo xil saaray gudiyo ka kooban bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaasi oo ka shaqeynaya arrimo ay ka mid yihiin horumarka magaalada bilic soo celinta sidoo kale waxa laga hirgeliyay booliis isku dhaf ah kuwaasi oo ka hortagaya magaalada inay ka dhacaan dhibaatooyin la xiriira dhanka ammaanka magaalada dhuusomareeb nabadeeda iyo xasiloonideeda aad ay u wacan tahay waxaana shacabka dhuusomareeb oo waxyaabo badan soo maray iminka ay ku fakarayaan inay magaalada ka hirgeliyaan goobo ganacsi waxaana socda qorshaha howlahaasi waxaan dhismaya oo la maalgelinaya xarumihii dawladda dhulkii dadkii shacabka ay lahaayeen dhammaan waxaa ka socda dhismooyin baa ka socda dadaal baa socda lagu diyaar garoobayo shirka maamul goboleedka Galmudug waxaan leenahay hambalyo intii ka qayb qaadatay iyo inta hadda rabtay inay ka qayb qaadataba haddaan nahay dadweynaha ku nool magaalada dhuusomareeb gacmo furan inaan ku soo dhaweyno iyo furfuraan waxaan diyaar u nahay cid kasta oo danaynaysa heshiiska maamul goboleedka Galmudug in aan soo dhaweyno dhismuhu wuxuu soconayaa si xawliya dabaqyaal la jeexaya hadda waa idin soo tusi karnaa dawriyaasha hadda la kaxaysa tirahdaan waa soo tusi karnaa dabaqyaal la dhisaya oo filooyin baa la dhisaya waxaan soo anagoo ururka hooyooyinka oo Galmudug waxaan isku raacnaa soo dhaweynaynaa anagoo ururka hooyooyinka israaca ee maamulada gobolada dhexe ee Galmudug oo israacay tabaabshoonteeda iyo soo dhaweynteeda wufuudda soo socoto iyo saan ku soo dhaweyn lahayn anagoo ururka hooyooyinka dhalinyarada kulligeena odayaasha ayaan diyaar u nahay hadeerna martidu ay tahay tirada oo gobolada iyo meel kasta aan hagaajinay guriyaha dayactirkooda aan ku jirno aad baan u soo dhaweynaynaa soo dhawaadaan leenahay wufuudda soo dhawaada garba furan baan ku soo dhaweynaynaa anagoo isku aan ahayn oo hooyalo dhalinyarada oo ururka hooyooyinka ururka dhalinyarada cid kasta leh ayaan diyaar waxaan u nahay inaan soo dhaweyno maamulka israacay ee Galmudug markaan waxaan sheegnay deegaanka inuu nabad yahay in ay ka socoto howlo badan ay ka socoto lagu soo dhaweynaa dhalinyarada gacmada furan ku soo dhaweynayaan ma sha Allah waana soo dhaweynaa dadka imaanaya waa soo dhaweynayna si fiican oo soo dhaweynayna kuwii tagana waxaan leenahay deegaankiina ku soo laabta qurba joogta iyo ganacsada waxaan u baaqaynaa in deegaankiida ay horumarsadaan inay maal gashadaan inay bilicooda dib uga soo celiyaan in dhalinyarada ay qaybtooda ay ka qaataan sidii hadda dhalinyarada sportska afkooda aan ku hadlaayay iyo dhalinyaradii kale ururka dhalinyarada degmada ay hadda bilicda iyo dhismaha ay qayb ka qaadanayaan saas aan soo dhaweynaynaa magaalada dhuusomareeb ayaa hadda waa bari cusub u dilaacay waxaana ay u soo jeesteen dadka ku dhaqan inay ka shaqeeyaan bilicda iyo horumarka magaalada maadaama ay waxyaabo badan ay la daalaadhacaysay maxamed cabdiweli tooxow telefishinka caalamiga ah ee Universal dhuusomareeb